Kombiyuutarro laga sameeyo unugyada maskaxda bini'aadamka ayaa soo socda. Ma u diyaar garownay? Cilmi-baarayaal ku takhasusay sirdoonka macmalka ayaa bilaabay inay eegaan xuduudaha tiknoolajiyadda hadda jirta, halkaas oo fikrad cusub oo xiiso leh ay soo baxday in la isticmaalo unugyo nool oo maskaxda bini'aadamka ah sidii qalab kombiyuutar. Maxaa la sameeyey ilaa hadda? Biocomputers ayaa weli ku jira bilow. Waxay awoodaan inay diyaaraan ciyaaro fudud sida bong iyo inay qabtaan aqoonsi hadal oo aasaasi ah. Xiisaha waxaa kiriyey 3 arrimood oo isbiirsaday: maalgelinta ganacsiga oo ku qulqulaysa wax kasta oo la xiriira, hababka korinta unugyada maskaxda ee ka baxsan jirka oo aad u horumaray, oo ay warshadaha dawooyinka si weyn u adeegsadaan, horumarka degdega ah ee interfaciska maskaxda iyo kombiyuutarka, taas oo bulshada ka dhigtay mid aqbasha isku dhafka noolaha iyo mashiinka. Taariikhda tiknoolajiyadda in ka badan 5 sano, saynisyahanadu waxay koriyeen neurons dusha arrays elektaroonig yar si ay u daraaseeyaan sida ay u shaqeeyaan. 2 meeyadii waxaa la isku dayay isgaarsiinta 2 geesood ah oo u dhexaysa neurons iyo electrodes. Bilowgii kombiyuutar biohybrid 2 saynisyahano ayaa muujiyey in stem cells ay isu abaabuli karaan qaab 3 geesood ah oo u eg maskax. Waxaa lagu magacaabay brain organoid intelligence 2. Shirkadda Tortical Labs ee Melbourne waxay muujisay neurons la koriyey oo baranaya ciyaarta bong. Warbaahintu waxay ku buunbuunisay ereyga embodied sentience, taas oo kubaro badan ku tilmaameen mid xad dhaaf ah oo khaldan. 2. Koox cilmi-baarayaal ah ayaa soo jeediyey ereyga organoid intelligence, erey soo jiidasho leh balse khatar ku ah in la fahmo inuu la mid yahay inkasta oo farqi weyn u dhexeeyo su'aalaha. Anshaxa qodobada anshaxa ee hadda jira waxay diiradda saaraan organoid sida qalab caafimaad, ma aha sida qalab kombiyuutar. Kubaro badan ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo cusboonaysiiyo heerarka anshaxa, maadaama horumarka iyo ganacsigu ka horreeyaan heerarka. Tartanka cilmi-baarista iyo ganacsiga shirkado iyo jaamacado ku yaal Maraykanka, Switzerland, Shiinaha iyo Australia ayaa ku tartamaya dhismaha biocomputers. Shirkadda Finalspark ee Switzerland waxay bixisaa adeeg fog oo lagu helo neural organoids. Tortical Labs waxay diyaarinaysaa kombiyuutar miiska la dhigo oo la yidhaahdo alhal. Jaamacadda San Diego waxay xitaa ku talisay in organoids loo adeegsado sadaalinta sida saliidda u faafayso Amazon sanadka 2028. Xaqiiqada maanta nidaamyada hadda jira ma laha garasho ama miir, waxay kaliya muujiyaan jawaab fudud iyo la qabsasho. Shaqada degdega ah waxay diiradda saartaa soo saarista nidaamyo la isku halayn karo, ballaarinta cabbirka, helitaanka isticmaalka caafimaad iyo cilmi baaris. Waxaa loo adeegsadaa beddelka modelka xayawaanka ee cilmi baarista neerfaha iyo toxicology. Su'aalaha waaweyn: maxaa loo aqoonsanayaa sirdoon? Goorma, haddii ay dhacdo, ayaa shabakad unugyo bini'aadam ah mudan tixgelin anshaxeed? Sidee bulshadu u maamuli doontaa nidaamyada noolaha ee u dhaqma sida kombiyuutarro yaryar? Gunaanad tiknoolajiyaddu weli waa ilmo yar, laakiin horumarka degdega ah wuxuu muujinayaa in doodaha ku saabsan miir, shakhsiyad iyo anshaxa isku dhafka noolaha iyo mashiinka ay noqon karaan kuwa degdeg ah oo lama huraan ah. Waxaan u habeeyey tarjumaad rasmi ah oo af Soomaali ah si ay bulshada u fahmaan waxa ay yihiin biocomputers iyo su'aalaha anshaxa ee ka dhasha.